isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka saaxil shaafici jaamac aadan ayaa galabta daahfuray koobka kooxaha Serie-A kaasi oo ka qayb gali doonaan 12 kooxood waxaanu socon doonaa muddo 30 cisho ah ama bil ah sanad walba xilligan oo kale ayuu koobkan la qabtaa waxaana ka qayb qaadanaya 12 kooxood 10 kamid ah waxa ay ka dhisan yihiin degmada Berbera halka labada kooxood ee kalena ay ka socdaan degmada Sheekh Siduwa Shaafici ayaana ugu horeyn warbixin ka siiyay maamulka gobolka iyo degmada koobkan xilligan qabowbaha furmay halkan maanta joognaa waa garoonkii Bursade ee hore ee qadiimka waxa maanta halkan munaasabada isugu nimaaytay waxaanu furaynaa maanta koobkii heerka koowaad oo ka kooban gobolka oo dhan waxa halkan gudoomiye ku wada ciyaaraya halkan waxa ku wada ciyaaraya 12 kooxood oo 3 gruubo min 4 iyo 4 iyo 4 12 kooxood ee wada ciyaaraya laba ka mid waa Sheekh tobana waa Berbera waa naadiyada heerka koowaad waan jecel gudoomiye inaad noo furto maanta hadii la yiraahdo farxad bay noo tahay koobkaas wuxuu soconayaa hadii la naftii loo daayo insha Allah bil buu soconayaa laba xildhibaan oo ka kala socday golaha guurtida Dayb Xasan Boobe iyo deegaanka Berbera Cali Cabdi Dheere oo iyagu ah ragga sida weyn u dhiirigeliya dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Saaxil ayaa si weyn u loo dardaarmay dhalinyaradaasi kuna waaniyay inta ciyaar socoto in ay muujiyaan anshaxa waa koobkii Serie-A ee awalba la qaban jiray marka hore iclaamintaanu iclaamina waxa ka horeeyay koobkii degmooyinka oo yaa ka horeeyay dib baan u dhiganay garoonka roogaan ugu dhiganay dib inaan aan ku qabano sidii koobkii Soomaaliland oo kale qaabkiisa aynu ugu qaban lahayn baynu dib ugu riixnay koobkii Serie-A aynu doonayna iyadana inaynu boor ka sii tunno ayaa isagana maanta bada saabka iyo xogayaha iyo xildhibaanaduba isku yimaadeen oo bada saabka maanta inoo furaya waxaan u mahad celinaynaa bada saabka gobolka waxa koobkan maal gelinaya ama ka qayb qaadanaya hay'adaha dawladda gobolka iyo hay'adda DB Wall waxa kamid ah hay'adaha dawliga waxa kamid ah wakaaladda biyaha iyo DB Wall ayaa ka qayb qaadanaya dawladda hoose in badan bay iyadu waday waxa weeye idana cidina ka tagamaysa laakiin waxa weeye waa la cadeynaya maanta cidda waxaan qabanaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa maanta ii sharafa inaan ka soo qayb galo koobkii eeda oo ee gobolka Saaxil iyo degmada Sheekh oo laba kamid ah ay yihiin